وتهاي خطبة مدحونها ومانتا كجديه فرتانكا كالفردقة بارلمانكا سوماليا لبديسا أقل oo arrimo badan kaga hadlay waxa ila falanqeynaya studio ila jooga Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga si dhowna ula socday khudbada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Dr. soo dhawow wardheere su'aasha ugu horeysa khudbada madaxweynaha maanta maxaa kaaga muuqday ma ahayd midii ku munaasabka ahayd ee madaxweynaha laga sugayay okay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed dalka dibadda khudbada madaxweynuhu ma ahayd khudbad munaasib ku ah maanta xilkii laga sugayay mase ma aha jawaabteeda waxaan rabaa inay dad kale iga horeeyaan sababtu waxay tahay waxaan rabaa madaxweynaha inaan ixtiraamo laakiin si kastaba ha ahaatee marka aan ku sameynay itemization ama waxyaabaha oo madaxweynuhu ka hadlay markaan soo qaadno oo aan dabcan aan daba kacayo ilaa 24 shay ayuu madaxweynuhu ka hadlay run ahaantii anoo madaxweynaha ixtiraamaya waxaan dhihi karaa khudbada madaxweynaha waxaa ka cusleed khudbadii uu jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka mudane Jawaari ayaa ahayd khudbadii maanta meeshaas munaasibka ku ahayd sababtu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu ka hadlay waxyaabo la qabtay iyo waxyaabo oo iska soft oo aan aad u cuslayn uu ka hadlay khudbada waxyaabaha culus looga hadlay oo dalkan dhibaatada taala si toos ah loo address gareeyay ama looga hadlay waxay ahayd khudbada oo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari ahayd si kastaba ahaatee madaxweynaha asaguna waa hadlay waxyaabo badan oo ka hadlay oo aad u fara badan oo hadii aad tiraahdo muxuu ka hadlay iyo waan u daadigi doonaa waa gartay aad u mahadsan marka adoo soo koobay waxyaabihii afaan la gareysay ama qodobaysay madaxweynaha ka hadlay ku ugu muhiimsanaa anagoo mid u galeen maxaa kaaga baxday guud ahaan waxa iga baxday marka hore khudbada madaxweynuhu horta sida muuqata way qoreed laakiin madaxweynuhu warqadii qoreed ma aqrin sababta waxa dhacaysa markii qaarkood intuu hadalku ka istaago hadana warqad fiirinay hadana ay soconaysa farsamo xuma ay jirtay marka dabcan sida caadiyaana madaxda khudbadaha waa loo soo qoraa marka madaxda khudbadaha marka loo qoraayo dadka khudbada qoraayo waxa la rabaa inay khudbadaas ay og yihiin dadka ay ugu tala galeen marka dabcan hadii uu madaxweynuhu tii loo soo qoro akhriyo iyo hadii uu mid kale asaga ay markaas ay leedo u akhriyaba dabcan khudbada madaxweynuhu waxay aad khudbad ku saabsan waxyaabo oo soft iyo sida aan ku sheegay yani kicinta dadweynaha iyo baraarujin iyo adigu waxay u ekeed khudbo oo wili inuu madaxweynuhu ku jiro campaign oo madaxweynuhu inuu madaxweyne yahay oo sanadkii labaad oo fooda la galay oo markaan la iska sugayo xisaab iyo waxyaabo la taaban karo oo fakti ah ayaan sugaynay madaxweynuhu inuu ka hadlo kama hadlin laakiin si kastaba ha ahaato adigu waajibkii loo baahnay ee dastuuriga ahayd waa gutay oo ahayd inuu shirka furo waana furo yiri marka waxaan jeclaan lahaa in hore looga socdo waa gartay marka arrimo badan oo ka hadlay madaxweynaha ammaanka ka hadlay siyaasadda oo midii gudaha iyo dibadda oo ka hadlay kobaca dhaqaalaha dalka oo ka hadlay annagoo marka mid u soo qaadeen si kooban siyaasadda arrimaha gudaha oo tan maamul goboleedyada ku saabsan iyo ka waran arrintaas markuu madaxweynaha soo hadal qaaday dabcan maamul goboleedyada waa ka hadlay wuxuu sheegay asaga iyo maamul goboleedyada inay ka shaqeynayaan sidii oo maxaan ku raadaa loo hirgeli lahay federaaliinti oo maamulkii loo dhisi lahay wuxuu ka hadlay sida la rabo in doorasho loo qabto 20 laakiin sida muuqata arrimahaas oo federaaliinta ah oo dhismaha maamul goboleedyada ah iyo hogaankii la sameeyay sida ay hadda ku socdaan iyo doodaha hadda socdaan iyo sida ay yihiin inkastoo wax badan lagu balansan yahay bishan 20keeda iyo 8deeda baydhabo lagu balansan yahay weli hawshaas si sax ah looma gelin oo waxay ku cadeed heshiiska ay dhawaan gaareen ay ku cadeed marka waxaan sugaynaa inay dabcan hal tilaabo hor u qaadana sugaynaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arinta wuxuu ka hadlay nabadgelyada uu ka hadlay dabcan hortiisa ayaa waxaa laga sheegay oo dadkii ka yimid maamul goboleedyada ay ka sheegeen dhibaatada amni darro ee dalka ka jirta asaguna waa ku raacay amni darro inay jirto wuu sheegay laakiin hadda qaab istiraatiijiyad cad oo dhahay sidaasaan aan ku qaabilayna ma jirto marka laga reebo inuu dhahay
dalku dagaal ku jira inuu dhahay way jirtaa inuu dhalinyarada al-shabaab uu dhahay macnaha heesoo dhiibana maaha laakiin cafisaan u fidiyay inuu dhahay way jirtaa oo aan cusbeen oo aan cusbeen inuu tegay inuu dhahay ciidamadii isku dhafka ciidamadii ayaa socda inuu dhahay waa jirtaa laakiin ciidamada isku dhafka dhawaan waxaa soo baxay ama national security architecture waxaa lagu qoray ciidanku inay noqon doonaan 18 sida ay ku noqonayaan mechanismkii guddigii ka dhigi lahay siyaasadii ciidamada kudi lama sheegin waxa kale to very interesting oo muhiim ah Jawaari markuu hadlaayay wuxuu sheegay in hay'adaha nabadgelyada sida militariga iyo nabad sugidda iyo booliska xeerarka ay ku shaqeeyaan ay yihiin ama shuruucda lagu dhisay ay yihiin kuwii 60kii ilaa 72 oo u jeedo kuwii militariga inay yihiin oo aan xeerar ahayn oo xoogooda macna aan xeerar ahayn marka in dib u habeen marka hawshaas oo dhan hadayna ayna qorreen oo yani maanta yani wuxuu sheegay xaqiiqo ahaantii wuxuu sheegay ninka la dhahayo Jawaari hay'adaha nabadgelyadu qawaaniinta ay ku shaqeeyaan iyo Soomaaliya sida hadda ay tahay oo nidaamka la rabo federaalka inay qaato la rabo inayna shaqo isku leeyahay laana waxa lagu qoray xilligii militariga iyo wareegtooyina lagu soo saaray Soomaaliyana waxaas waa ka soo gudubtay marka meeshii dhanba waxaa ka soo baxday dawladnimada iyo amniga aasaaskiisa oo qawaaniintii iyo xeerarkii iyo booliska ay ku shaqeyn lahaynba maba qorraba saas darteed haddii san qorreyn maalin kasta in lagu dhawaaqo la dhaho dagaalan gelaynaa iyadoo ciidamada wixii lagu maamuli lahaa iyo qaanuunkii lagu maamuli lahaa iyo xeerarkii iyo xiriirkii dadweynaha iyo ciidamada iyo istiraatiijiyadda iyo booliska ayna qorreen marka waxaa meesha ka muuqanaysa in hore la soo cakari anagu marka ku jirna arimihii gudaha markuu ka hadlay siyaasadda in doorasho qof iyo cod dhacayso golo deegaanka iyo la dooranayo rag qobaarana loo saaray arrimahaas iyaga naftood maxaa kaaga baxay xaqiiq ahaantii qof kastoo Soomaaliya horta waa garan karaa inaan shacbi hubaysan oo dagaalamay oo la leeyahay dib u heshiisiin loo sameeyo dadkii dhammaan dadkii beesha ka hadla maanta ka hadla gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacbiga labaduba waxay ku baaqeen in Soomaaliya u baahan tahay dib u heshiisiin marka dad dib u heshiisiin u baahan oo hubaysan oo aan tirsanayn inaan doorasho hal qof iyo hal cod inaysan ka dhicin qof kasta waa gartaa aniga lama rabo caqligeena in lagu sameeyo sabti lama rabo in lagu sameeyo laakiin haddii la dhahay haddii laftigiisu waa sheegay haddii dhaqaalaha iyo amnigu noo saamixi waayo wuxuu dhahay model kalaan keenaynaa modelka kale muxuu ahaan karaa kii hadda lasoo isticmaala miyuu ahaan karaa ma wuxuu ahaan karaa degmooyinka in loo qaybsho miyuu ahaan karaa goolda in loo qaybsho miyuu ahaan karaa ma wuxuu ahaan karaa numberka in kor loo qaado oo la badiyo oo meeshi ahayd konti ku qofka inay doorato in 500 laga dhiga miyay noqonaysaa ma waxay noqonaysaa kuraasta in mar labaad 18 gobol loo qaybsho oo la dhaho gobol kasta waa marka waa arrin oo imaan doonto waa laga rabaa imaan doonto laakiin midna suurtagal maaha dadka Soomaaliya waxaa la rabaa ayaguna lama rabo inay been isu sheegaan madaxduna waxaa la rabaa dadka runta u sheegaan Soomaaliya saacadan meeshay taagan tahay 2020 markii la gaaro hal qof iyo hal cod suurtagal mayso intaas waxaa dheeri ah dad dhageysanaysa gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu dhahay madaxweynaha maalintii la doortay iyo hadda marka la joogo waqtiga u dhiman ee oo madaxweynaha ay tahay shaqada inuu ku qabto wuxuu dhahay waa 16 bilood oo la jeeday 2 sano ee 18 iyo 9 macnaha wixii ka dambeeyay kadib dadku waxaa la geli doonaa doorasho iyo campaign iyo saddex xildhibaan lagu noqolaa iyo hawlo kale la geli doonaa lagama shaqeyn doono siyaasad saas darteed markaan xaqiiq ahaan ka hadalno horena u sheegnay dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiin u baahan hadii dadada waxay ku leeyihiin yaa dagaalsan laakiin su'aashu waxay tahay dagaalkii yaa ka heshiiyay okay mid kaleeto Soomaaliya in federalism oo aan sidii loogu talagalay aan loo sameeynin oo si qaab daran loo sameeynayo waxa uu soo dadka beelaha Soomaaliya inay cabsi kala qabaan oo beeluhu waxay rabaan inay u isticmaalaan federalismka ayagoo dhahay federaalanahay oo haddana beel ah inay gaashaan ka dhigtaan shield waxay rabaan inay ka dhigtaan hadda dhageysanaysay ninka ka hadlayay gudoomiyaha baarlamaanka ninka ka socda baarlamaanka Puntland wuxuu dhahay dastuurka marka lagu sameeynayo dib u eegista lagu sameeynayo wuxuu dhahay dastuurka dawladda dhexe waa inuu san khilaafin dastuurada maamul goboleedyada marka yani Soomaaliya arrimaheedu soo ma dhawa hadiiba la taagan yahay oo la rabo dad Soomaalida qaar waxa ku jira waxay rabaan dastuur ay qorteen ay waxay rabaan in qaranku oo ayagu kooda soo waafaqo marka meeshaas waa u jeedaa waxa kale oo dhahay gobolada Sool iyo Sanaag ayagana wuxuu dhahay waxay ka tirsan yihiin Puntland macnaha waa u jeedaa meeshaas waxa ka jira dagaal hadal la galayo yiri hadii wada hadal la galayo Puntland ay qayb ka ah macnaha waa arintii oo si adkaanayso very complicated marka hadii saas tahay dalkan wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin marka wadan aan dib u heshiisiin loo sameyn
oo dadkiisu ay hubaysan yihiin oo trustiga iyo conferencega iyo isku shaqada marka doorasho qof cod in waqti badan lagu lumiyo waa gartay wali marka arrimaha gudaha ku jirna safaradii safarka uu galay madaxweynaha 17 cisho ahaa aad uga hadlayeen asagoo markaas muday in awood siyaasadeed oo ka dhigay xaqiiqo ahaantii sida loo akhrinayo safarka madaxweynaha waa loo kala duwan yahay dabcan dad waxay u akhrinayaan sida madaxweynuhu oo sheegay inay ahayd guul siyaasadeed laakiin dad kale waxay u akhri karaan inuu safarka madaxweynuhu uu yahay qaan siyaasadeed sidee saanqaan siyaasadeed wuxuu ku yahay madaxweynuhu 18 project ayuu soo dhagax dhigay 18 kaas project marka la soo dhagax dhigay mid loo sameeyay study ama survey oo marka hore la qiimeeyay waxa ku baxay iyo meesha ku imaanayaan ma ahna dumar iyo caruur isu yimid dhagaxa meel la dhigay waa la sacbiyay projectiga waa la dhigay dhahay okay sida ay sheegtay Xaliimo Yari oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxay sheegtay oo ay raadiyo ay ka sheegtay live uga sheegtay TV-ga uga sheegtay waxay tiri madaxdu markay goobaha ama gobolada ay tagaan dadkay u tagaan yeysan u soo ballan qaadin projectal ayna fulinin marka waa qaan siyaasadeed oo hadda sanadka dambe haduu madaxweynuhu ku laabto Puntland iyo Galmudug haduu ku laabto oo qodob 18 project oo soo dhagax dhigay aan midna oo nakirgelin madaxweynuhu wuxuu galaa qaan siyaasadeed marka dhinacaas waa loo akhri karaa dhinaca kale waa loo akhri karaa waxa loo akhri karaa inay fiicneedo dumar iyo caruur iyo dhalinyaro iyo waayeel oo Soomaaliyeed wali aan hore u arkin madaxweyne Soomaali ileeyihiin way arkeen laakiin xaqiiqo ahaan marka la marka mid qaanta kula culuso aniga waxa ila culus qaanta siyaasadeed laanu madaxweynuhu hal sano kadib wuxuu noqaha dadka u taga wuxuu noqaha eedeysan shacabkii iyo xamaasadii waa dhamaanayaan marka laakiin hadii asugu uu arko guul siyaasadeed ama dad u arkaan guul siyaasadeed waa arrin kale laakiin aniga waxaan u arkaa arrinkaas culays ku soo bixi doona madaxweynaha waa an guud ahaan mid kale meesha taalo waxay tahay oo hadda yani nidaamkan siyaasiga ee hadda jira qof sameeyo baaritaan sax ma jiro oo wali waxay u baahan tahay in baaritaan sax la sameeyo laakiin temperature-ka dadka sida u kacay oo political demandiga ay dadku ay sugayeen 8 Febraayo 2017 hadii caaw dib loo cabiro graafku hoos u soo degay sababta waxay tahay dadku marka ay ku taageeraan waxay ka rabaan bedelkooda waxay ka rabaan abaalmarin marka mana dhicin marka hadii san dhicin dadku waxooda dib u laabanayaan taas marka lagu jiro arintaas kobaca dhaqaalaha ka hadlay madaxweynaha oo sheegay 2016 oo ahaa 4.6 haddana uu yahay 7 marka soo ma aha in rabitaankii dadkii wixii dhaqaalii dalka uu ka codlaga horta marka u horeysa anigu economist mihi laakiin waxaan ahay strategist Soomaaliya ma balahaba gibi ahaanteedba ma lahaba qaab lagu cabiri karo kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya and in fact qofka yani see loo cabiraa Soomaaliya waa wadan fragmented ah waa wadan fail state waa wadan kala daatay oo dhaqaalihiisa meel oo u socdo iyo meel oo ka socdaba cid taqaana ma jirto inuu kobco waxay ku timid hufnaan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maya kuma imaan saasoo madaxweynaha aniga ma rabna madaxweynaha inaan dhahno wixii oo laakiin khudbada rabna inaa madaxweynaha nagu dirin madaxweynaha wixii uu sheegay waa sheegay sidiisa ugu dhaafayna laakiin anaga waxaan qabnaa aqliyan qabnaa wadankan waa wadan oo fail state oo kala daato maanta waa maqlaysa gudoomiyaha ninka ka socda baarlamaanka Hirshabelle oo Jowhar jooga just 90 km from Mogadishu wuxuu sheegay Mogadishu iyo Jowhar inay kala go'an yihiin marka wadan Mogadishu iyo Jowhar ay kala go'an yihiin oo 90 km ah dhaqaalihiisa cid cabiri karto kubiciisa iyo cid sheegi karto oo Ilaahay abuuray ma jirto hadii u bataan waxaan madaxweynaha waxay u soo guuriyeen waxyaabo oo World Bank ay sameeyeen estimation iyo rafli ah and that's not the fact aan marka aan leenahay Soomaaliya aan leenahay la soo waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya waxaan u naqaanaa laga soo bilaabo loo yacadi oo lagu geeyo dhoble aan u naqaanaay dekada Muqdisho iyo suuqa Bakaaraha iyo Harees uma naqaan marka IMF iyo World Bank waxa ay sheegeen in Soomaaliya ay leedahay maamul hufnaan ah oo hufan marka hufnaantaas uu sheegay okay anyway iyadoo lagu dabaqay hadalka ah in musuq la diray anyway hadii musuq la diray yaa loo soo qabtay qof la soo qabta ma jirto numberka labaad madaxweynaha laftigiisa wuxuu sheegay qaanuunkii musuqmaasuqa lagu dirir lahay inuu yaalo aqalka sare yaa loo sheegay isla markaas waxa dheeriya aniga sofa inta hadda sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda hal qof oo leeyahay qof kaana lagu soo qabta musuqmaasuq walow allaha ka dhiga $100 oo la maxkamadeeyay ama shacbiga la hor keenay ma jiro marka musuqmaasuqa marka la dirir waa in la arkaa dadkii la soo qabtaa
wixii ay musuq maasuqaayeen la soo qabtaa xisaabta la cadeeya marka waxaan jecelahay anigu I want to respect the president however we want to be realistic waxaan rabnaa dadkeena madaxdeena waxaa laga rabaa dadkooda inay u sheegaan xaqiiqada waa gartay aad u mahadsan tahay arrintaas kuma dheeraanin marka siyaasadda arrimaha dibadda oo madaxweynuhu khudbadda maanta waxa aad loo sugayay waxay ahayd in uu ka hadli doono arrimaha dad Soomaalidu ay islahaayeen madaxweynuhu si aad uga hadli doona waxa jirtay madaxweynuhu wuxuu yiri waxa diyaar maalgashiga iyo ganacsiga caalamka cid kasto doonaysa in maalgashiga Soomaaliya inay soo dhaweynayaan laakiin wadada loo maray ay tahay in hay'adaha saxda ay soo maraan arrinta ma ku hadlay madaxweynaha adu maxaa kaaga baxay okay arrintaas horta marka horta numberka koowaad horta madaxweynuhu wuxuu sheegay Soomaaliya inay qaadatay siyaasad dhexdhexaad ah inay qaadatay waxaan u fahmay inuu u jeeday arinta ka aloosan bariga dhexe ama khaliijka carabta dowladda khaliijka arintaas madaxweynuhu wuxuu ku midan yahay taas wuxuu ku midan yahay amaan numberka labaad madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu safar ku tagay wadamada diriskeena anigu waxaan qiyaasaa inuu u jeedo Ethiopia laakiin asugu afa kuma dhufan laakiin marka wuxuu yiri wadamadaas waxaan ka soo wada hadalnoo dhahay arrimaha gobolka ama mandiqada inaan si wada jira oo si sax ah uga shaqeyno oo aan u fahmay inaan dawladda Soomaaliya aan la gacan bidixayn oo hadda kadib wixii state to state ama G to G ah dawladda Soomaaliya inay ka wada hadlaan taa marka hadii uu sida uu sameeyo madaxweynuhu uu sameeyo idina madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay amaan waxa ku soo hortay dhinaca maalgashiga iyo arrimaha maalmaha la sugaayay ee Soomaaliya dabcan madaxweynuhu si toos uga ma hadlin oo ma sheegin arrintan dekada berbere iyo ma sheegin si guud wuxuu u sheegay in Soomaaliya cid rabta inay maalgashato inay soo marto hay'adaha sharci dejinta oo u jeedeen macnaha heshiis kasta oo ay Soomaaliya daraf ka tahay hadii si sax ah uga qayb gasho waxaa la rabaa in la soo marsiyo baarlamaanka Soomaaliya oo baarlamaanka uu ansixiyo waana sida sax ah oo dastuurkeena qoray taasna madaxweynuhu waa ku saxan yahay laakiin waxaa la rabay sida ay aniga ila tahay waaye arrintan oo ku saabsan berbera marka laga hadlaayo waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed dhibaato kala gaartay wayna kala dideen dadka kala didkooda in la sii kala durjiyo lama rabo ana waxaan fiirsaday oo aan fiiriyay madaxweynaha Soomaaliland oo hadlaaya niman siyaasiyiin oo xisbiye madaxka oo hadlaaya oo Hargeysa ka hadlaaya dadkii way dideen ama way basi durgayaan durgaas iyo dadkaasna anaga ma rabno anaga waxaan rabnaa walaalaheena ku nool waqooyiga Soomaaliya waa walaalaheen waa jecelnahay waxaan rabnaa inay horumar nololeed ama ha noqoto siyaasadeed deganaansho siyaasadeed horumar dhaqaale mid adeeg bulsho inay helaan oo wiilish iyo gabdhaha ku nool Hargeysa iyo Burco iyo Berbere iyo Boorame iyo Ojoge inay shaqo helaan marka anigu horta marka hore waxaan rabnaa dadkaas in moral code la address gareeyo marka qaabkaas marka hadlaan marka dadkan qaabka marka dadka sii didinaya marka qaabkaas saxmeen sida sax ee loo hadli karo waxay ahayd horta dekedan marka laga hadlayo iyo wixii seexay waxa laga fiiri karaa saddex arrimo laga fiiri karaa dhinaca siyaasadda caalamkana waa laga fiiri karaa dhinaca qaanuunka caalamkana waa laga fiiri karaa dhinaca siyaasadda caalamka hadii laga fiiriyo Soomaaliya dalka Soomaaliya uma baahna in la yiraahdo Soomaaliya waa qaran midaysan sababta waxay tahay Soomaaliya waxay qaran midaysan iyadoo ah oo ay ku jirto waqooyiga Soomaaliya waxay bulshada caalamka ku biirtay 20 September 1960 markay ku beertay Soomaaliya xuduudeeda badeeda oo ay ku jirto ka soo bilaabanayso xuduudda Djibouti iyo Soomaaliya ee badda iyo xuduudda Djibouti iyo Soomaaliya oo bari ah oo Ethiopia soo marayso Kenya soo marayso abadooyinta ku imanaysa xuduudaas waa xafidan tahay waana cabiran tahay marka in waqti badan in lagu dhumi uma baahna marka waxa kala jirta waxa rabaa dadkina u sheegan rabaa 1991 markii dawladda militariga ay duntay waxa dhacday dawladnimadu waa afar shay waa afar tiir waa dhulka iyo dadka iyo dawladnimada iyo aqoonsiga meeshii waxa ka baxday dawladnimadii laakiin dhulka iyo dadkii waa soo haray aqoonsigana waa soo haray marka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa golaha security council kala dhaho ama majlis al-amn dawli qaraaray soo saareen 371 waxay yiraahdeen xuduudda Soomaaliya waa xirinta labada taabakar intaas waxaan ku dirayaa qodobka ku diray siyaasadda ninka arintan ka hadlay oo yiri ma aqoonsinin Soomaaliyana kala ma hadlayno xukuumadda kala kama hadlayno waa nin agaasimada kadeeda
agaasimada kadeed warkiisa meel ka soo qaad ma laha adduunyada xiriirka caalamka laga hadlayo waxa la tixgeliyaa xafiis madaxweyne xafiis ra'iisul wasaare iyo wasaaradda arrimaha dibadda ninkan waa nin agaasimo shaqaalaha miisaanka la siiyay wax u goyna ma jirto ninkaas waa nin shacbiya in culayskaas la qaado ma aha mid kale to waxa ku filan intuu sheegay ra'iisul wasaaruhu oo dhahay heshiis kasta oo dhaca waa in la soo marsiyaa baarlamaanka Soomaaliya that's all walaalaheena waqooyiga Soomaaliyana laakiin qaab luqad ka duwan oo maadaama midnimo la raadinayo waxa kale ku soorto walaalaheena waqooyiga Soomaaliya ma ogol yihiin su'aasha koobaad waxay tahay ma ogol yihiin 60 ina isku daranay Soomaaliland waxay tahay su'aasha waxay tahay ha way ogol yihiin haddii ogol yihiin Bidenkaas iyo heshiiskaas aan galno oo isku biirka ah hal dhinac kama bixi karo waa inaan isla ogolaanaa inay naga bixi karaan marka ayagana waxaan ogahay dad fara badan oo waxna akhriya jooga aad uma statutoro waqtigu aad noo hay dartiis marka arinta ku saabsan oo kale ciidanka naftiisa soo hadal qaad in AMISOM laga kaaftamo madaxweynaha ka hadlay inkastoo hadda shirki Kampala uu kaga qayb galay dhawaan laga hadlay in xilligan AMISOM aysan bixi karin arrimahaas maxaa kaaga baxay actually wasaan ku sheegay Soomaaliya adduunyada waxa ka jira laba ciidan ka jira ciidan saddexaad ma jiro ciidan waxa waaye waa ciidamadii wadamada waxaan ka hadlay qaaradda Afrika ciidamadii ay dhiseen wadamadii gumaystuhu ay dhiseen oo Afrika ka jira waa jiraan oo aan dumin ciidamadaas waa shaqeeyaan ciidanka Kenya kamid ciidanka Djibouti kamid Djibouti waxa dhisay Faransiiska Kenyana waxa dhisay Ingiriiska dhisay waxa dhacday ciidamo saas oo kale loo dhisay in lagu sameeyo kacdoon oo lagu sameeyo revolutionary ay ku kaceen waa sida ciidanka Ethiopia iyo ciidanka Uganda marka dalka Soomaaliya horta su'aasha waxay tahay aniga ma ciidankii colonialkan nool oo ciidankii Ingiriiska iyo kuwa ay dhiseen Talyaaniga oo isku dirna ma ciidankaas nool mise waxaan leenahay ciidan revolutionary aan leenahay su'aashu waxay tahay ciidankii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay dhiseen Soomaaliya ciidankaas waa dumay qawaaniinta iyo shuruucda ay ku dhisnaayeen sida oo sheegay gudoomiyaha baarlamaanku waa baaba'een marka mid oo kacdoon sadarteed ciidan kacdoonna ma aanan samaysan marka hadda waxa jira oo wadankeena ka jira oo ciidan ah sharciba kuma dhisna ciidan saxana ma noqon karaan waxaana loo baahan yahay in hadda si fresh ah oo cusub loo bilaabo waxayna u baahan tahay karti iyo awood siyaasadeed oo xoog leh oo aan hadda ii muuqan u baahan tahay